بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ورالي قالقة قيمة بدن شرفت بدن تريد دافعها ميل والباء جوجين ومركلي وراشين مريم رون وحيد الله هاي سودو وادا أصحاب سودو وادا جرال كيغا مريم رون وفاشينال هدي هاي قف إيكو عصب بريس دايما عند مركي كوريس أصود بوقت الجرال كيغا سبسكرايب سار كمبريل كان أون كديغا سي أو كوسو غارو wax walba aan channelka soo dhigay insha Allah noqotay qofka ugu horeeyo ee daawada marka labaad maanta waxaa idin wadaa video cusub marka maanta waxaan sameysanaynaa hadda waa leedna insha Allah cabitaan aad u qiimo badan aan heli karin marka waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada ka faa'iideysta insha Allah wixii aan ka sameeynayn waa wax iska fudud aan cusleen oo meel walba laga heli karo insha Allah marka intaan shay aan ka sameeysanayna cabitaankeena maanta hadoo alla idmo marka waxaa idin leeyahay ka faa'iideysi wanaagsan insha Allah marka ugu horeysa meeshaan waxaan ku haystaa waa hal xabo oo cananaas aan soo jarjaray waa hal xabo cananaas oo aan soo jarjaray inta waxaan ku haystaa beetroot ama beetraaf qof walba sida oo u yaqaano inta waxaan ku haystaa sokor inta waxaan ku haystaa baraf marka intaas labada shay oo qiimaha badan oo ka kooban yahay cabitaankeena maanta marka soo dhawaada asxaabay ka faa'iideysi wanaagsan insha Allah marka beetrootkeyga soo diyaarsanaya hadda kan oo ii jarjaran yahay cananaaska shaqadiisa aad u dheer tahay marka suuq marka ka gadatid anaga qofka aad ka gadataa ku fiiqaayo ku soo jarjaray gurigaaga soo caadi ah keensanaysa laakiin beetrootka hadana soo jarjaray markaan soo hagaajiyo aan ku soo laabanayna insha Allah كذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا asxaabay waa kan hadda beetrootki waa soo diyaariyay laba xabo aan soo jarjaray waa si yaryariisa oo soo jarjaray geedku waa adag yahay marka cananaaskin xoogaa asna waa soo yaryareeyay marka hadda waa soo shiidanaynaa markaan soo shiidan kadib aan isku soo laabanaynaa asxaabay waa kan haddeertaan cabitaankeena waa soo shiidanay waxaan kusoo darsanaynaa barafkii aan kusoo darsanaynaa waxaan ku leeyahay waa kaas cabitaankeena saas quruxda badan oo soo baxay rasiinka ana cabitaan waxaan jeclahay inuu rasiin ahaa kaal iska arag waa laga yaabaa ku dhawaad kaas saas quruxda badan oo soo diyaariyay barafkiisa iyo waxaan ku dhahay dhadhankiisa ma laga sheekeyn karo waa cabitaan aad iyo aad u qurux badan aad iyo aad u caafimaad badan qofkii dhiig la'aan ay hayso hadda gabdhaha xaamiladoo kale aad ugu fiican yahay HB-gooda inay kor ugu soo qaadaan qofkii dhiig la'aan hayso waxaan ku dhahay qof yar iyo qof weyn qofkii oo markaas oo tabarta ku yar tahay qof walbaa la sii karaa waxaan ka soo diyaariyay laba shay oo fudud waa beetroot ama beetraaf qof walba soo u yaqaan iyo cananaas waxaa ugu daray maadaama oo beetrootka oo wax dhadhan oo lahayn inoo dhanaan iyo tasti fiican oo u sameeyo oo kaal arag oo ka dhigo marka saas qurux badan maanta soo diyaariyay waxaan idin leeyahay ka faa'iideysi wanaagsan insha Allah ka naftiina ugu faa'iideeya walaalihiina ugu faa'iideeya ilmihiina ugu faa'iideeya ehelkiina ugu faa'iideeya familkiina ugu faa'iideeya qof walba oo markaas aad leedahay oo fiican yahay ugu faa'iideeya insha Allah marka maanta intaas ay idinku talagalay inaan idin la soo wadaago cabitaankan qiimaha iyo ehelkiina ugu faa'iideeya familkiina ugu faa'iideeya qof walba oo markaas aad leedahay oo fiican yahay ugu faa'iideeya insha Allah marka maanta intaas ay idinku talagalay inaan idin la soo wadaago cabitaankan qiimaha iyo sharafta iyo wanaaga badan marka waxtarkiisana aad u badan yahay marka labadoo bari hadaa cabtid wallahi waa laga dareemaya marka waxaan idin leeyahay ka faa'iideysi wanaagsan insha Allah waa walaashin Maryam Runo idinku soo talagashay mar walba waxaan jecelahay walaalahayga inaan wax tar leh inaan soo gudbiyo ay ka faa'iideysanayaan marka labaad waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantihiin daawashadiina iyo ku xirnaantiina marka videogayga intaas uu ku eg yahay intaan dib dambe u kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo Soomaali meel walba aad joogtiin farxad igu noolaada insha Allah horumar wacan insha Allah ونبتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا
ألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا